بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 450 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. متفق عليه. وفي لفظ: فليعمل ما شاء. إخوة الإسلام والإيمان، maanta ay taariikhda islaamka ay tahay 15 bishii 6 jamadu thani sanadka 1442 isla markaana waafaqsan 28 bishii 1 sanadka 2021. waxaanu ku jiray oon bartamada kaga jiray mawduuceennii aan ugu magac daray aan nidhi fadaa'ilu istikfaari wa fawaa'iduha, istikfaarta faa'iidadeeda iyo fadaa'isha ay leedahay. axaadiis dhowr oo aad u qiimo badan baanu qaadanay. maanta xadiidkan xadiid cajiiba weye oo qofka aad iyo aad u rajogelinaya sida kii shalay oo kale hadduusan ka siiba daraynba. xadiidkeennan ikhwati fillaahi waa xadiid saxiixa muslim iyo bukhaari ayaa soo saaray, waa muttafaqu calayhi wey. lafdigan aanu soo naqlinanaya saxiix muslim baa aan ka soo naqlino iskale, laakiin bukhaarigana waa ku yaalaa. saxiix muslim raqamkiisu waa 2758, ama fi saxiix albukhaari waa 7507 wey. alfaadooda way isku dhadhow yihiin, laakiin lafdiga maanu dooranay. intaa waa xadiidka sugnaanshihiisa wey. xadiidku waa xadiidulqudsi weeye oo nebi maxamed baa wuxuu toos oga warinayaa rabbigii. wuxuu leeyahay xadiidkan abu hurayra radi allahu tacaala canhu wa ardaah baa can inabiy sala allahu alayh wasalam nabiga ka warinaya fii ma yaxki can rabbihi caza wajal, wuxuu nabigu rabbigii ka warinayo. qaala rabbi baa wuxuu yidhi: adnaba waxaa dembaabay cabdun addoon baa dembaabay denban dembi buu dembaabay. faqaala wuxuu yidhi: allahuma akfir lii, allow ii dhaaf denbii dembigeyga allow dhaaf. faqaala tabaaraka wa tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi: adnaba waa dembaabay cabdii addoonkayga denban buu dembaabay. facalima wuxuu ogaaday ana lahu inuu u sugnaaday rabban yakfiru dhaafa addenba dembiga dhaafa, oo waya'khudu qabta bidenbi dembigana wax ku ciqaaba, oo dembiga qofka gala ciqaaba. rabbi nooca inuu ilaahay buu ogaaday. uma caada addoonkii waa noqday oo faadnama waa dembaabay. faqaala haddana addoonki wuxuu yihi: ay rabbi ikfir lii denbii. faqaala tabaaraka wa tacaala rabbi baa wuxuu yidhi: cabdii addoonkayga adnaba waa dembaabay denban. facalima wuxuu ogaaday ana lahu inuu u sugnaaday rabban inuu leeyahay rabban yakfiru denba waya'khudu qabta bidenbi ee dembiga qabtoo ku ciqaaba qofka. uma caada addoonkii waa noqday faadnaba waa dembaabay. faqaala wuxuu yidhi: ay rabbi ikfir lii denbii. faqaala tabaaraka wa tacaala ilahay ba wuxuu yidhi: adnaba cabdii denban buu dembaabay. facalima waxaa ogaaday ana lahu rabban inuu leeyahay yakfiru denba waya'khudu bidenbi. qaala markaasoo alla subxaana wa tacala wuxuu yidhi: icmal maa shi'ta, addoonkayow icmal samee maa shi'ta waxaad doontay, faqad gafartu laka, waan kuu dembi dhaafay. shaahidkeenna waa halkaas: icmal maa shi'ta waxaad doontay samee, faqad gafartu laka, waan kuu dhaafay. xadiidka muslim iyo bukhaari baa soo saaray. lafdigaana icmal maa shi'ta faqad gafartu laka waa lafdiga imaam muslim wey. ama lafdiga bukhaariga falyacmal maa shaa wey. falyacmal ha sameeye maa shaa wuxuu doono. raawiga ku jira xadiidka oo warinaya cabdulaclى ayaa wuxuu leey: laa adri qaala fi thalithati aw araabicati icmal maa shi'ta, markii saddexaad icmal maa shi'ta inuu yidhi iyo markii afraad baana kala garanaynin buu yidhi. ikhwat alislaam waliimaan, xadiidkan xadiid cadiima wey. waa xadiidulqudsi oo nabiga ayaa wuxuu ka warinayaa rabbigii. wuxuuna ka waramayaa mulakhaska xadiidka
inuu allah subxaanahu wa tacaala addoonkiisa mar kasta oo uu dembaabo oo uu toobad keeno inuu ilaahay toobadda ka aqbalayo. tikraaru tawba ama tikraaru dembigoo soo noqnoqda qofka kama mancinayo inuu toobad keeno. marka mar kastoo addoonku uu toobad keeno hadduu ilaahay u noqdo ilaahay waa ka aqbalaya. ma dhahayo maxaad ugu noqnoqonaysaa dembiga. mar kasta uu dembi ku dhaco oo uu toobad keeno ilahay u noqdo ilahay wuu ka aqbalaya. saas darteed bay culimmadu waxay dheheen xadiidkan wa fi lxadiidi cidamu faa'idati اlistikfaari wa kahratu fadli illaahi wa sicatu raxmati wa karami. xadiidka waxaa ku sugan bay dheheen faa'idada istikfaarta ay leedahay weynankeeda iyo fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala badnidiisa iyo raxmaddiisa waasacnimadkeeda iyo karamkiisa iyo deeqdiisa. maxaa yeeley kulamaa addoonkiisa uu dembaabo oo haddana ka toobad keena ilahi wuu ka toobad aqbali. ma dembigaadu noqnoqod badana ma dhahay. kulamaa uu toobad keeno haddana alla wuu ka aqbalaya. waxaa kaloo culimmadu dheheen maadaama yatuubu linsaan insaanku maaratay mar kasta uu toobad keenaya ilahay dembigu ka aqbalaya toobadda uu ka aqbalaya. maa dumta tudnibu uma tatuubu maaratay kafartu laka way macnaheedu. icmal maa shi'ta macnaheedu waxaa weye kulamaa dembi aad ku dhacdi ood haddana aad ka toobad keenti waan ka aqbalhaya toobaddii wey. ee macnaheedu kuma tusinayo ku dhiirinasho lagu dhiirigelinayo qofku inuu dembi galo. ee mehe waxaa lagu dhiirigelinayaa mar kasta oo dembi uu galay uu ka toobad keeno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka aqbalay. icmal maa shi'ta maaratay mar kasta oo dembi aad geshood ka toobad keenti waan ka aqbali wey. idan xadiidkan wuxuu ku jira axaadiidta aad iyo aad u rajogelinaysa saaxibulmacaasi. dembigu waa weyn yahay iyo wuu farabatay iyo ma kale leh. mar kastoo dembi ku dhacday rabbiga haddaad u noqoti ilahay wuu ka aqbalaya. idan xadiidulqudsigan wuxuu noo caddaynaya rabbi baa wuxuu leeyahay addoon baa dembaabay. markaasuu addoonkii wuxuu yidhi allow ii dembi dhaaf, allow dembigayga dhaaf. rabbi baa subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi addoonkaygu wuu dembaabay, dembi buu dembaabay oo wuxuu ogaaday inuu leeyahay rabbi dembiga dhaafa dembigana ku ciqaaba qofka. haddana waa ku noqday addoonkii dembigii waa dembaabay. haddana wuxuu yidhi ilaahu ii dembi dhaaf, dembigayga dhaaf. rabbi baa haddana wuxuu leeyahay addoonkaygu waa dembaabay, dembi buu dembaabayoo wuxuu ogaaday rabbi dembi dhaafa inuu leeyahay dunuubtana qofka u qabto oo ku ciqaaba. haddana waa ku noqday addoonkii dembigii. haddana rabbi kfirli mar kasta uu dembaaba rabbi kfirli buu dhahayey oo toobad buu la imanayay way macnaheeda. ma ahun rabbi kfirli keli inaad iska tiraad. haddana rabbi baa wuxuu leeyahay addoonkaygu waa dembaabay oo wuxuu ogaaday rabbi u dembi dhaafa dembiga dhaafa dunuubtana dadka maarata ku ciqaaba inuu leeyahay. icmal maa shi'ta faqad kafartu lak. bimacnaa mar kasta oo dembiga aad ka soo noqoti waan ka aqbalayaa toobaddii weeyaan. icmal maa shi'ta faqad kafartu lak macnaheedu maho iska dembaabasaa doonti may. bimacnaa ha ka welwelin mar kastoo dembi aad ku dhacda haddaad ii soo noqoti waan kaa aqbalahayaa wey. dembiga maarata waan kaa aqbalahayaa toobaddii wey. mar kasta oo dembi aad ku dhacdi haddaad ii soo noqoti waan kaa toobad aqbali wey. falyacmal maa shaa wuxuu doona ha sameeyo. hadduu mar toobad keeno maadaama yatuubu waan ka aqbali weyan toobaddaas. maxaa yeele dembi la galo gaalnima u weyn. qofkii gaalnimadkii ahaa gaalka hadduu soo islaamay dembigiisa o dhan baa laga dhaqi. waxbuu dilay hadduu toobad keeno waa laga aqbali. faaxishihii zina ayuu la yimid waa laga aqbali hadduu toobad keeno. khamri buu cabay, ribuu qaatay, wuu toobad keenay waa laga aqbali. idan mar kasta oo addoonku uu toobad keenayo toobadda waa laga aqbalaya. saas darteed imaam nawowi wuxuu leeyahay addoonku hadduu dunuub badan galo oo qayb ka mida uu ka toobad keeno qaybna uusan ka toobad keenin intuu ka toobad keeno waa laga aqbali. hadduu dunuubtii oo dhan hal mar uu ka toobad keenana waa laga aqbalaya. hadduu dembiga intuu ku dhaco uu toobad keeno oo waa laga aqbal. haddana hadduu ku noqdo dembigii oo haddana toobad keeno waa laga aqbalaya. rabbi kafuururaxiim weeyaan. lamana mar haddaa dembigii ku dhacdo ka toobad keentay mar damba ha ku noqon waa sida saxda inuusan qof ku noqon. laakiin haddana hadduu shaydaan duufsado uu ku noqdo oo uu toobad keeno toobaddii waa u furantay ilaa laga gaadho waktiga toobadda la xidhay. idan xadiidkan ikhwati filaahi waa arja waxaa weeyaan axaadiida rasuulka axaadiidta ugu rajigelis badan weeyaan qofka. icmal maa shi'ta layidhi faqad kafartu laka waan kuu dembi dhaafay. dembi kastood gashay haddaad toobad keentay waan ka aqbali wey. halkaa waxaanu ka qaadanaynaa ciwaankeenni ahaa fadaa'ilu istikfaari wa fawaa'iduha. istikfaarta faa'idada iyo fadliga ay leedahay cadiimkaa iyo maarata ilaahay fadligiisa farabadnidiisa iyo raxmaddiisa waasacnimadkeeda iyo deeqda ilaahay
uusan marnaba u qabanin addoonkan marka uu dembi galo hadduu toobad keeno toobadii uu ka aqbalay oosan la dhehaynin dunuubtii maxaad ugu noqnoqonaysaa uusan dhehaynin. idan waa maarata waa rabbi kafuur raxiima weeyaan, rabbun raxiim weeyaan, oo maaragtay dulmakfirati lwaasica, makfira waasican u saaxiiba. ilaahi subxaanahu wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa lxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tusan nugu nirtaaqa xaqa raacitaankiisa. waxaan u baaqahayaa walaalaha intay dembi iyo wax galaan laga yaabo shaydaan inuu qurxiyo o yidhah war dembiga muddo dheer baad ku jirtay ama dembi weyn baad gashay waxba toobad kuu tari mayse meelaad ka noqotay ma jirto. shaydaan weeyaan waxaa dhahaya marnaba waxaa inuu ka dhegaysta ma dembi kasta oo uu galo toobad baa u furan awqaaddii toobad haddii la joogo. maxaa yeelay wax dembioo bini aadam uu galo shirkiga iyo gaalnimadka u weyn. gaalnimadkii dadkii ka toobadkeenana ilaahay wuu ka aqbalay. saxaabatu rasuulillahi in badan oo kamid a gaali ahayd markay toobad keeneenna dembigoodii ilaahay baa u dhaafay, waa laga aqbalay toobadoodii. idan waxayna noqdeen ayagoo adduunka socdaa janno loogu bishaareeyey. raggii mushrikiinta ee gaalada ahaa ayagoo nool nool baa janno loogu bishaareeyey. gaalnimadkoodii wixii o dhanna ilaahay baa ka dhaqay. idan marnaba dembi aad gashay yuusan kaa hor istaagin inaad toobad keeni weydo oo hadhihin dembigaadu wuu farabatay, dhibaato badan baad samaysay iyo dembi fara badan baad gashay oo waxba toobadkeenkaadu ma tarayso. marnaba hadhihin ee toobadda ilaahay way furan tahay. gaalnimaa laga toobad keenaa, dil baa laga toobad keenaa, zinaa laga toobad keenaa, sixir iyo shacwadaa laga toobad keenaa, fan iyo shaydaannimo iyo heese iyo balaayo qof ku jira uu ka toobad keenaa. intuba ilaahay toobadiisa marka way furan tahay, wuuna ka aqbalhayaa. waana xadiid cadiima weeyaan. marka walaalaha waxaan ugu baaqahayaa inuu marnaba ka hor istaagin dunuub badan oy galeen shaydaan inuusan ku waswaasinin. maaragtay waxba toobada idima tarayso, dembigiina waa weyn yahay, lama ogolo arrinka quusashadaa inuu qofku gaadho. ilaahay subxaanahu wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu ilaahay noo dembi dhaafo, dunuubteennana alla uu dhaafo, mar kastana kuwa toobadkeena ilaahay uu naga dhigo. waakaan maqlayna shalay aan soo maray yani alla uu lahaa addoommadiisa haddii dunuubtaadu ay samaawaadka ay gaadho iyo daruuraha ood istikfaari weydiista waan kuu dembi dhaafhaya, una aabayeeli mahayo dembigaadu intuu dhan yahay. kana sidoo kale weeyaan, icmal maa shi'ta lii faqad kafartu laka, waan kuu dembi dhaafay. mar kastoo toobad keenti waan kuu dembi dhaafaya wey. mar kastoo soo noqotay dembiga ka soo noqotay faqad kafartu laka, waan kuu dembi dhaafay. idan waa maaragtay dhiirigelis inuu qofka had iyo jeer toobadkeena lagu dhiirigelinayo wey, ee maaha macnaheedu inuu dembi galo in lagu dhiirigelinayo. hal mar baan xadiidka aan akhrinahayaa. alxadiiث 450 can abi hurayrata radi allahu canه can الnabiy salى اllahu عalayh wasalam fima yaxki can rabbihi caza wajal qaala adnaba cabdu danba faqaala allahuma اغfir lii danbii faqaala tabaaraka wa tacaalى adnaba cabdii danba facalima ana lahu rabا yغfir الdanba wayaأkhud bالdanb ثuma caada faadnaba faqaala ay rabi اغfir lii danbii faqaala tabaaraka wa tacaalى cabdii adnaba danba facalima ana lahu rabا yغfir الdanba wayaأkhud bالdanb ثuma caada faadnaba faqaala ay rabi اغfir lii danbii faqaala tabaaraka wa tacaalى adnaba cabdii danba facalima ana lahu rabا yغfir الdanba wayaأkhud bالdanbi icmal maa shiئta faqad gafartu laka mutafaq عalayh wfي lafظi falyacmal ma shaaء. hada wslى اllahu عalى nabiyina mxamadi wعalى alih وsaxbihi aجmaciin wالsalaamu عalaykum wraxmat اllahi wbarakaatu.